maanta oo bishii 5 tahay bishii 8 2026 waxaa ciidamada difaaca Puntland ay ka fuliyeen howlgal qorsheysan magaalada Gaalkacyo taasoo looga howlgalay xere halka ku taal oo muddadii u dambeysay dowladda federaalka ay ku soo daabuleysay hub iyo saanad iyo ciidan ay ugu tala gashay inay ku khalkhalgeliso amniga iyo xasiloonida Puntland. waxaan marar badan la wadaagnay dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadka jecel ka shaqeynta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliyaba falalka ka socda madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu ku khalkhalgelinayo kala dambeynta iyo nabadgelyada yar ee tukubaysay ee Soomaaliya ka jirta guud ahaan iyo gaar ahaan nabadgelyada muddada dheer ka jirtay deegaanada ay ka mid yihiin Puntland oo ahaa meelo muddo xasiloona wuxuu ka shaqeynayay sidii uu khalkhal amni ugu abuuri lahaa isaga oo dad dana gaar ah leh ay ku been abuurteen dadka iyo dhalinyarada reer Puntland khalkhalna ku geliyeen iyo kuwo laga keenay deegaano kale oo magaalada Muqdisho ah oo muhiimadeedu ay tahay in Puntland oo mar walba u taagan nidaamka dawliga ah iyo ilaalintiisa iyo federaalnimada in laga dhigo meel aan kala dambeyn ka jirin oo dowladnimo ka jirin si dowrka ay ku leedahay dowlad dhiska ay meesha uga baxo dalkan uu ku noqdo gacan aan habboonayn oo si guracan loo maamulay wuxuu mararka qaarkood ku beer la xawsanayay inuu ciidamo dowladda federaalka halka ku abuuray ciidamada Puntland waa ciidamo Soomaaliyeed ee la dagaalama argagixisada burcadbadeeda dib u soo celinta dowladnimada ee ka fuliyay deegaano badan oo koonfurta Soomaaliya ilaa ay qayb ka noqdeen in filadii Soomaaliya dib loogu soo celiyo maamulka dowladda oo ilaa iyo maanta ka arrimiya ciidankaas waxaa maamulaya dowladda Puntland waxa ay mar walba u taagneed qaranka iyo dhismihiisa ciidan meel kale ka imaanayo oo runtii maamul kale uu maamulayo maanta suuragal kama aha Puntland inuu ka jiro Puntland waxay muddadan ka shaqeynaysay dowlad dhiska qodobada aasaasiga oo dadka Soomaaliyeed u dhiman inay qayb ka qaadato iyadoo markaas uu noqon doono dalku sida dastuurka ku qoran ciidanka difaaca Soomaaliya oo mid noqon doono ama national army waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada geesiyaasha ah ee difaaca Puntland oo ka howlgala dhammaan geyiga Puntland oo la dagaalamay Daesh oo la dagaalamay al-shabaab oo mar walba u taagan xasilinta guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland waxaan runtii uga mahadcelinayaa sareeyaasha iyo hogaamiyaasha ciidanka taliyaashooda sida habsamida leh ay kala dambeynta iyo dowladnimada u ilaaliyeen siday howlgalka u qorsheeyeen sida ay ugu guuleysteen in ay dowladda Puntland gacanteeda ku soo celiyaan xeradaas oo ahayd xero dowladda Puntland ay maamusho laakiin muddadii u dambeysay ka shaqeynaysay nidaam khaldan waxaan uga mahadcelinayaa shacabka reer Puntland meel kasta ay joogaan isgarabtaaga ciidankooda iyo go'aanada dowladda sida ay u fuliyeen waxaan sidoo kale ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysa halka uga soo jeedinaya ama faraya inay xasiloonida ilaaliyaan in dhaawaca la daryeelo in maxaabiista si fiican loola dhaqmo in aan wax khalkhal ku saabsan ama tacaddi ah loo geysan guud ahaan dhalinyaradaas la khalday halkaas lagu qabtay waxaan sidoo kaleeto halka baaq ugu soo jeedinayaa dhammaan dhalinyarada kaleeto ee gobolada Puntland jooga ee nidaamka ku jiray warqadaha beenta iyo biometriga beenta ah laga buuxiyay ku andacoonayeen inay federaal ka tirsan yihiin Puntland ciidanka jooga waa ciidanka Puntland maanta ciidan kale oo ka jira ma jiraan waxaan rabaa dhalinyaradaas inay ciidamada dowladda Puntland ka mid noqdaan isu soo dhiibaan nidaamka dawliga ah raacaan cidii ka dhaga adeegta jawaabahaas la mid ah helaysaa waxaan rajaynayaa inay saraakiishuna ka shaqeyso meelaha ay ku sugan yihiin oo dhan ay ciidamada dowladda la shaqeeyaan sidii hore ula shaqeyn jireen cidii aan ciidan ahayn oo ciidan aan rabin danaheedii ay qabsan jirtay ha qabsato Puntland waxay u taagan tahay midnimada Soomaaliya dowladnimada Soomaaliya waxay adkeynaysaa nidaamka dawliga curdinka ah waxay hormuud u tahay
nidaamka federaaliga ee dalka Soomaaliyeed ugu dabaali doono. waxaan ku faraxsannahay nidaamka Puntland inuu yahay midka maanta dowladaha kale ee xubnaha ka dowladda federaalka saldhigga u ahaa gacan qabatay dhismahooda qayb ka qaadatay shuruucdooda iyo dhismahooda dowladnimada ay qayb ka qaadatay meelaha ay ku tababartaan ka ahayd haddana sidii baan ugu taagannahay. waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa dowladda Galmudug oo runtii muddadii anigu aan xilkii hayay wada shaqayn wanaagsan aan wada lahayn, amniga ka wada shaqaynay, xasiloonida ka wada shaqaynay, ciidanka labada dhinac Galmudug iyo Puntland ay si midaysan uga wada shaqayn jireen, sidii gaar ahaan gobolka Mudug oo gobol runtii xudun u ah Soomaaliya, meel xasaasi ku yaal laba maamul dhexdooda ah, sida taariikhda ah ay ugu guuleysteen in nidaamka federaaligu uu yahay wax dadka kala qaybiya, sida dadka ugu candocoodaan. waxaa daliil u ah magaalada Gaalkacyo oo laba maamul oo state ay ka jiraan oo haddana wada nool. federaalnimadu dadka ma kala qaybiso, dadka isku soo dhaweysaa, wada shaqayn bay leeyihiin, shuruuc baa dadka kala xukunta, wada shaqayn bay leeyihiin, amnigay ka wada shaqaynayaan, horumarka ka wada shaqaynayaan, dhinaca bulshada ka shaqaynayaan. fariinteennu waxa weeye fariin walaalnimo, Soomaali meel kastay joogto, cidna inaan ku xadgudubno ma rabno, laakiin nidaamka hadda Muqdisho ka jira waqtigiisa dhamaaday sharcina kuma fadhiyo. waxa uu hadda waxaan u sameynayana waa inuu sharci darradiisa uu qiil uga dhigaa oo aan laga hadal, oo dadka uu khalkhal geliyaa, oo madaxda uu weeraraa, oo magaalooyinka degan uu yiraahdaa khalalaasaan ka ridaya, oo waxaan jirin uu ka shaqeeyo. waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha xilligiisu dhammaaday waa siyaasi Soomaaliyeed, dalkan laba mar madaxweyne ka soo noqday. waxaan leeyahay khaatimadaada ha ku dhammayn waddo xun, dadkaaga u soo noqo, talada la wadaag, ilaahay baa macsuuma, qofku waa khaldanaa. waxaan kuu soo jeedin lahaa tala midaysan oo Soomaaliyeed gaar, haddaad wanaag aad martidna Soomaali wanaag bay kuga haynaysaa. xumaanta faraha badan oo hore u soo gashana haddaad tan ku sii dartid hadda mid aan la ilaaweyn bay noqon doontaa. bal intii hore u gashay intaa sharciga ahayd haba laga wada xaajoodo oo Soomaaliya u taallaa, laakiin inta aan sharci darrada ah ku samaysid ogow waa mid ka duunaan doonta kuwa sharciga marka ahayd aad samaysid. taladeedu waxa weeye gaar ahaan gobolka Mudug, Galmudug iyo Puntland inay si midaysan nabadgelyada uga wada shaqeeyaan. waxaan ka mahadcelinayaa tallaabadii shalay ay qaadeen ciidamada iyo maamulka Galmudug oo diiday inay qayb ka noqdaan dhibaatada lagu hayo Puntland. sidaasoo kale aan ballan qaadeenaa, horena u ballan qaadnay, ayna ogyihiin inaan dhibaato uga imaan Puntland Galmudug, inay cadowga ay leedahay ay gacan ka siiso, inay darisnimada iyo walaalnimada ay sii xoojiso, in wax kasta oo iyagu ay goostaan aan kula shaqayn doonno haddii ilaahay arrimahooda daakhiliga ah maamuleed dadkeeda iska leh. laakiin annaga waxay nooga tashanayaan mar walba waxa ay taladoodu tahay inaan gacan ku siino. inta yar oo mar walba rabta inay xumayso waxaan rajaynayaa inay meel uga soo wada jeestaan, ammaanka wada ilaaliyaan. waxaan fariinteeda ugu dambaysa ku celinayaa in dadka arrimahaas ku lugta leh ee gobollada kale ee Puntlandna jooga inta aanan tallaabo laga qaadin inay u degdegaan awaamiirta dowladda. saraakiisha dowladda ee deegaanada ay joogaan way is yaqaanaane ay la xiriiraan inay dowladdooda qayb ka noqdaan. beenta iyo huhaada la falkinayay niman siyaasiyiin ah oo damac guracan leh oo dadka reer Puntland ah, waxaan u soo jeedinayaa ninkii dadkan damac kale siyaasadeed dadka ha u yimaado siyaasad qoriyeysan oo ciidamaysan. suuragal maaha dalkan in looga gaaro. ciidanka dowladda Puntland iyo ciidanka Soomaaliyeedba waa ciidan shacabka Soomaaliyeed leeyihiin, wax sharci ah oo xaq ah unbay ka shaqeeyaan, wax qof ah kama shaqayn karaan. dowlad ku hoos noolaan kartaa ma jirto. maamulka dowladda Puntland waa mid, hay-adihiisa dowliga ahna waa mid, dadkiisuna waa mid. ciddii isku dayda inay waxaan jirin ka shaqayso intii loo dulqaadan kara waa loo dulqaatay, laakiin ciidamadu iyagoo ku howlan inay calmiskaad nafur ka sameeyaan oo buuraha galgala ay wax 15 sano ka badan ay dul saaran yihiin, oo bacadka iyo qabowga iyo dhaxanta iyo cimilo isbedeshay mararka kuleylka ay u joogaan, suuragal ma noqon karto in guryahoodii iyo xaasaskii iyo dhulkii deganaa loo dabamaro dana yar oo raqiis lagu bedesho dadkana wax la yeelo. fariinta maanta dhacday waxaan ugu hambalyeeynaya shacabka reer Puntland meel kasta ay joogaan
gaar ahaan ciidamada geesiyaasha ah ee difaaca dowladda puntland qeybihiisa kala duwan oo dhan taliyaha guud ciidamada difaaca puntland taliyaha booliiska saraakiisha kale ee dowladda ee hogaaminaysa hawshaas askartii ka qayb qaadatay waxgaradkii iyo waayeelkii iyo maamulkii gobolka mudug iyo dhammaan mas-uuliyiinta puntland ee arrintaas sida turxaanta yar oo kooban kusoo afjartay taas baa insha allahu tacaala mahad ilaahay ugu celinaynaa ilaahay ka sokowna dadkii hawshaas qabtay u qorsheeyey waan u mahad celinaynaa ilaahay idankiis wiilasha dhallinyarada ee la siray ee qaar maxaabiista hadda yihiin qaar dhaawac yihiin waxaan rajaynayaa dadkiinni baa la joogtaan ehelkiin baa la joogtaan walwalyuuna ina gelin ilaahay idankiis bulshadiina ka mid noqon doontaan meelaha aad jeceshiin baad ka shaqayn doontaan wax mushkilaa ma jirto laakiin dowladdu waajibkeeda u saaran tahay waxa weeye nidaamka inay ilaaliso dadka horena waa u sheegay dadka ku celcelinayo nin walba inuu meel dhigto dad oo qabaa'il baa nahay waa reer hebel maanta 28 sano ee puntland joogtaa qabaa'ilka reer puntland oo dhan baa dowladdan harsanaya cid si gaar ah ahamiyad gaara oo kuwa kale aan lahayn leh ma jirto cid sharciga ka weynna ma jirto waxaan rabaa cid walba inay sharciga puntland harsato cadaalad ku dhex raadiso wixii khaldanna ay waddada sharciga u marto ciday ka cabanayso hadday maxkamadaha ku kala baxayso iyo hadday golayaasha kale dowladda ay samaynayso laakiin cid meel kale cid uga amar taagleynayso oo weliba cid aan sharci lahayn dhahaysa awaamiir bay siinaysaa yaa lagu hongoobin madaxda federaalkan waxaan odhan lahaa inay joojiso hubkii lagula dagaalami lahaa cadowga al-shabaab inay soomaalida dhexdeeda isugu dhiibto oo waxaas ka shaqayso oo kuwii u dambeeyey shalay ay ahaayeen intaa ku ekaada aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu